cali uraaye waa orgi ka caana suuqa magaalada Hargeysa ilaa haatan lama hubo inuu soo baxsaday iyo inuu xor ku joogo suuqa kadib markii xukuumadii hore ay ku xukuntay sanad xabsi guriga cali waa orgi ay urtiisu qaadayso qofka u jira 20 tallaabo qooqa iyo dhibisaydkuna waa waxa sababay qarmuunka xadigaale isagoo cali ari iyo xoolo midna aan qareen u ahayn waana gooni daaq bahaluhu ay ka qayliyeen isagoo habeen baluuq madow dhiga dhuuca bulbushale oo ah kan qarmuunkiisu qadaad gooyay dad iyo bahalba qunyar socodkan tallaabada iyo qoobabka aad moodo kuwii fardaha geesaha gaamuray intaba cali waxa uu dheergiirka iska kiciyo marka uu maago dagaal waxaanu kama ka soo galin garaacista dadka riditaanka iyo gaadista sidoo kalena mararka qaarkood waxa uu jaraa jidadka magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa dadweynaha suuqa magaalada Hargeysa oo cabasho ka muujiyay sanadkii 2016 ayaa sababtay in orgagani isla markaasi xabsiga loo taxaabo laguna xidho xabsi guri waana markii labaad ay dadka ay codsanayaan in orgigani lagu xidho xabsi guri sanada waxa arkay inuu gacan ka jibiyay waa la sheegay marar intuu dad uu dilay leeyri maxkamadda jeel ku xukunto dhowr sano guriga ku xidhnaa way marka orga la wada yaqaano inta badan dadku kuma safaadaan hawshiisana iska wata suuqana iska dhax qaadaa marka wallahi orga markii la xukumay daawadayaal saal la sheegay orgigani wuxuu geystay dhibaatooyin buu geystay maxkamadda la geeyay intaas waxay ka dhacday magaalada Hargeysa imisa la xukumay والله أنا صحة ما هي لكن سنة ذي أحبار تقولي كحدنا أو نقولي وكسر بحنبه وحبس قريبة لو حنا حبس قريبة لو حنا وي مرة غير كده حنا مغلى ودوين كوكا لحدا بكور هدو عروضة إيه هدي اللي قاعد السيو وأرجع عاد بو أجريسيف ومد عرب ضوية وي وركا تدك أنت بدأ حسود أنا كعادي سنة عادي رأسك حيان مدة كلو أرجع قرمنو ماشي وضد مرة كرم ويسان وضد وكاري واحد قلت ما حد كان orgigan inta badan halkan uu jooga hal marna ma ku yiriday ya hal marna ma ku yiriday markuu yariyaday hay wax ma ku yeelay hay maxaad u taqaanaa orgigan de orgiga guriga calo raayo taqaana calo raayo Ilyas oo bal wadada iyo calo raayo sidaas ku tiin والله ninka cali uraayo la dhaxaatiya man ku taaganni waxaan marar badan isweydiinay ninka mar walba jidgooynta taagan yaa ku shaqo leh cidi ku shaqo lahayd oo garan la wali annagu cid farta ku fiiqmayno laakiin si cid baa shaqo ku leh cid baa la orgiga saleeyo orgiga ma cid baa leh laakiin si cid guud ee shaqo ku leh amba qaban lahayd amba xasbi u diri lahayd amba xidhi lahayd amba ninka musaafirin lahayd waan wali isweydiinaynaa dadweynuhu صح يا ninkaasi jidgooynu buu ku jiraa markaad aragto dadka ma lahayn dadka haday dumartay qofkii waxba ogeyn oo sii socda ayuu kaga gowsiinaya inta afweynta goosatay tira male marka waxaan u leenahay ilaahay uu naga qabo صح cidi shaqada ku lahay ma arkayse ilaahay uu naga qabaan leenahay aad dad maasay awaan isku soo wada xooriyada xukuumadii hore Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay orgigana u dirtay xabsi hal sano isla markaasina dib loo soo daayay ayaa dadweynuhu waxay mar labaad codsanayaan in orgigana xabsiga loo taxaabo cali uraaye gabihaanba wuxuu kala xidhay wadooyinka isagoo isla markaasi ay ka shaqeyn kari wayn traafikada magaalada Hargeysa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi TV-ga SBS magaalada Hargeysa